warsamo saaxib. هذا المرو ما حد ربط صاحب. warsamo maanta waxaan ku hayaa saaxib luqus baan ku hayaa. waxaan kaa rabaa inaad luquska xal inoogu heshid. jawaab baan kaa rabaa saaxib. وصاحب إيريك لغز كوا محمد في الصومالي بقى. war hal xidhaalaanu naqaana inaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. ilaa af carabiga ma aadan aqoon warsamo. وردل مرو الشكل هنا قدامه بالسيدة وحديست. سيدة صاحب أنا كو حلينيه. أنا حل كذا كوسينيه. war hal xidhaalan ku haya saaxib. saashiid waxa weeye saaxib suuqa waxaan ku arkay telefoon aan aad uga helay oo pricekiisu yahay $500. أوكي هي. aniguna ma haysto $500 saaxib. هي. marka waxaan sameeyey warsamo waxaan u tegey siin. وسين كوا محي. iskaba dheh siin waa nin siin waa magac weeye waa nin saaxiibka ah matalan oo magaciisa la soo gaabiyey. هي. markaasii wuxuu igu yidhi anigu $500 kuma hayee dalmarow haddaad rabtid saaxiib $250 baa ku haya qaado. واقرتي. $250 baan qaatay. هي. haddana waxaan u tegey saad. وصاد ومحي. waa nin kaloo saaxiibkay ah. صاحبك. haa waxaan ku idhi saaxiib $250 baan haystaaye $250 adiguna amahay. هي. saad baa wuxuu igu yidhi war qaado $250 qaado waa kaas. هي. haddaba warsamow jeebkayga intee ku jira. waxaa ku jira $500. haddaba waxaan sameeyey warsamow meeshii telefoonadaan tegay oo telefoonkii ayaan siri soo iibso ila lacagta waan haystaaye saaxiib. telefoonkii aan raadinaya $500 ahaa waxaan ba arkay baraaskii soo degay oo laga dhigay $450. warku waa cad yahay dalmarow. waan iibsaday saaxiib. markaa jeebkayga intee ku hadhay markaan bixiyey $450 intee ku hadhay. dee kontonba ku soo hadhay. markaan dukaankii ka baxay oo telefoonkii iibsaday warsamow waxaa ii yimiceen. ciim waa saaxiibkaagii saddexaad miya haddaba. war warsamo waad ila socotaa libax baa tahay. war warsamo waad la socotaa sheekada saaxiib. shaxda haddaad fahantay. saaxiibkay ceen wuxuu igu yidhi war dalmarow waxaan kaa rabaa ama $30 ah. haye. waxaan ku idhi qabso 30kii waa kaas. cajiib dalmarow war ma hubtaa ninka inaad lacagaba haysay. warsamo rootiyow ma adoo kalaadi mooday nin sacuudiga gacmaha lagaga soo gooyo bakhayla. ilaa weligay waanu ku naqaana warsamo rooti weligaa jeebkaaga wax soo gala maahe wax ka baxa weligaa lama arage bal aanu sheekada ku wadnee bal dhegayso. waa gartay. waxaan ku idhi qabso 30kii waa kaas. markaa jeebkayga intee ku jira warsamo iminka. tii 20 kaliya ku jira ilaa 500 baa kaaga soo hadhee markaad 30 siisay saaxiibkaa ceen tii 20 kaliya ku soo hadhay. warsamo libax baa tahay. haddaba iminka waxaan rabaa inaan deyntii aan qaatay dib u celiyo. waa gartay. waxaan u tegey siin 10 baan siiyey. waa war fiican. markaan 10ka siiyey siin intee buu deyn igu leeyahay warsamo. dee 240 su-uul kuma usi 250 dee 240 baa hadhay. haddana saad baan tegey isna waxaan siiyey 10. taasna waa 240 baa ku hadhay. 240 waxaad u geysaa 240 intee weeye. 480. 30kii aan siiyey ceen isagana ku xisaabi. waa 510 saaxiib. haa waxaad tiri 510. haddaba 10ka siyaadada xaggee bay ka timi warsamo. ninkaagani khatar baa tahe ar saaxiib alxalka ii sheegan waa igu adag tahe. war warsamo miskiin baa tahe war waqti baan ku siinaya kasoo fikir sheekada. war bal kasoo fikir baa nooca masla anigu waa hawsha uu kala tuuraya daqiiqad buu ku tuuraya. warsamo rooti waa ku aqaanay weligaa waxaad jeclayd wax kasta in lagu xalleeye. war ba halka raadi xal ma jire xal kulaha soo raadi waryaa soo raadi saaxiib. asxaabta weydii kommentiyada ha kugu soo qoreen war lagu soo qora kommentiyada xisaabta waa 0 buu ka yahay bal kommentiyada lagu soo qora bal ilaahay idin barakeeye. war waa kaa tegi warsamo casharadeedii baan ku noqonaya casharadeedii kribtada ku noqonaya saaxiib. bal waa inoo mar dambe. Raja Academy waa platform qof kasta oo xiiseeya cryptocurrency ama raba inuu macluumaadka ogaado uu ku baran karo koorsooyin ku baxaya afka Soomaaliga loona diyaariyay si casriyeysan. haddii aadan hore u maqal cryptocurrency waa lacag digital ah oo la qorsheynayo mustaqbalka dhow inay si official u gaarto caalamka oo dhan walow meelo badan oo adduunka ah hadda laga adeegsado. sidoo kale cryptadu waa meelaha ugu fiican ee la maalgashto. platform Raja Academy waxaa ku xiran kumanaan arday oo jooga dunida daafaheeda. koorsooyinka ku jira waxaa loo agaasimay sida ay u kala horeyso fahamka cryptada sida introduction, basic, intermediate iyo advanced oo mid kasta aad ku sii fahmayso ahmiyadda lacagaha digitalka ah sida ay u bedelayaan dhaqaalaha caalamka iyo ka muslim ahaan sidii aad qaab xalaal ah ugu shaqaysan lahayd. sidoo kale platformku wuxuu leeyahay qayb blog ah oo si joogto ah loogu soo gudbiyo waxyaalaha cusub iyo farsamooyinkii soo kordhay. markii aad iska diiwaan gelinayso kooraska waxaa muhiim ah inaad account ku dhex samaysato webka kadibna aad doorato payment option kugu habboon. haddii aad joogto Soomaaliya ku bixi EVC Plus-kaaga. haddii aad ku sugan tahay qurbaha isticmaal credit card-kaaga. haddaba si aad u hesho caawimaad joogto ah nagala soo xiriir linkiyadeena Telegram iyo WhatsApp. mahadsanid.